السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قروح بدن كسو دواada فيديو cusub muuqaalka ii like gareey ii share gareey soo dhawaada waa mahadsantihiin channelku wuxuu gaaray 21,000 oo walaalo maasha Allah tabaaraka raxmaan intaas in ka badan waa idinka rajeynaya waa mahadsantihiin idinkoo isku duuban hair nutrition meel walba ay joogtaan halkan waxaan ku diyaarsanaynaa qado ama casho oo kala arag fiican ilmaha gaas haday qabaan ama xasaasiyad insha Allah maadaama barnaamijka ilmaha xasaasiyad qaba maxaa la siin karaa oo cunno isku dheelitiran u noqon karto videoga insha Allah uga bogo imaaninteeda waxaa qabtay shalay arbacada video ni sameeyay xilli dambe khamiiso ni soo gaaraya video insha Allah xaqiisa siiya maalinta arbacada maxaa jeceshaa adiga inaad qabatid nadaafad mase dhar dhaqo ana waxaan jecel dharka inaan iska dhaqo maalinta khamiisan guryaha iska nadiifiyo maalin jimcadana madaxaada mugiisa hurud qadale ku tuuro maasha Allah tabaaraka raxmaan maalin jimca waa maalin nasiino maalin shaqo maaha hadii markaas oo shaqeynin oo halka maalin jimca bis guriga aada joogin ka faa'iideyso videoga waa dhiirigelin waxyaabo fudud mar walba halkan kusoo gudbiyaa inaa ka faa'iideysan doonto inaa rajeynaya asxaabtii quruxda badan si quruxda badan ay dhiirigelisiina waa idinka mahadcelinaya halkan waxaan kusoo diyaarsaday hilib shiid ama hilib shiidan maasha Allah tabaaraka raxmaan anu hilibku waxaa ka iibsadaa Somali meat waana jeeb kiilo waxay ka siinay $6 iyo bar waana hilib maasha Allah tabaaraka neefaf yar oo dheelay qashaa hilibka dhoofiska waaye shirkadaas maasha Allah tabaaraka raxmaan aniga meeqa sana ka gadanooya supermarketada aan hilibka ma iibsado waana fresh ayada isla maalintaas qashay wax fridge ma gelin kala arag maasha Allah tabaaraka raxmaan marka fridge-ka ka soo bixiyo aniga xogaa yar iyo 2 kiilo ahaa intaas hadda iga hartay marka waxaan rabaa inaan ilmaha ugu soo tuuro wax yar oo macaan badan oo kala arag waxaan rabay kabaab inaan ka sameeyo kadib laakiin waa kabaab laak dhowr nooc loo sameeyaa nooca uu rabay iima noqonin sababtoo uu noqon waa insha Allah video dhexdiisa ugu bagan doontiin asxaabteeda quruxda badan mar walba waa mahadsantihiin inaan idhaho kama daalo asxaabteeda quruxda badan muuqaalkan insha Allah xaqiisa si like far badan saar qaybta commentigana hambal ku soo buuxiya makiinad markuu ugu horeysaba makiinadu way shaqeeyayso oo hilibka waxaana waqtiga ma la helaa Ramadaan ba soo dhow maxaa qaldan suuq ma ii dir rabtaa makiinada office ka dhahay waxa haysatid mar walba wax ka dhigin kartaa makiinada cabitaanka soo qaatay basasha goonina u shiidaa rabay hilibkan gooni waa isku darsaday maadaama makiinada ay rabto wax qoyan ee u baahan tahay basasha dhicaankeeda marka ii qooy wax yariis biyana waa ku daray hilibka mar labaad soo ridqeysa waxaa la rabaa inuu isku dhagdhago asinam kareem oo noqdo hilibka soo shiida ama rabaad shiideysa hilibkan waa kabaab macaan badan oo kala ariga ilmaha si fiican kuugu cuni doonaan xabaaji waxa isku darso toon iyo filfil spice fara badan xataa uma baahno maasha Allah tabaaraka raxmaan minti ama nacnaac ku daray oo wax yar caleemaha qallan waa caafimaadka oo mar walbana ugu bedelan kartid booska maraq digaaga insha Allah maraq digaag waa ka maarmeysaan mar walba acshaabta dhirta isticmaala oo caafimaadka wax yar saliida ku soo daray asxaabtii quruxda badan iyo wax yar cusbo jablin dhanaan iyo xawaajideeda waa isku xashaya ugu yaraan wuxuu oolayaa saacado fara badan meel dhigaya shaqadeeda sii wadanaya maasha Allah tabaaraka raxmaan ku noqonaya ilmahaada kabaab insha Allah ama hilib shiidan sidaan ugu sameey way ka heli doonaan qasaarada igu dhacdo waxay tahay meel labada video hore xayaad ka soo adeegay waxa soo gatay walbeema warqada foornada marka mid cusub ay ahayd waxaan ma aqaan midii aqeen isii markaas hore way fiican tahay hilibka markay aragtaba waa waxaan shacaada way diiq aydan laakiin isla markiiba alxamdulillah waa iska celiyay saas ku fiican supermarket daabonada heysatay wixii ka halaa waa laga celinaya oo marka horna aad dhahdo waxa ma igu hubtaa marka maasha Allah tabaaraka raxmaan dhar dhaqowna waa lagu jiraa badar karis iyo dhar dhaqow hooyo hadii la yahay 99 gacan la qabaa alxamdulillah ilaaha noo barakeeyo hooyo hadii la yahay cimri dheer caafimaad Allah na siiyo asxaabtii qurux mar insha Allah isku soo duceeyno ayaantan xoogaa culeys ay haayo bal ii soo duceeya videowada ku dhac culeys ay ga saaran duub marka isdhaaba maya maanta ma duubi kar bari baa duubaya heerkaas baabanooya marka insha Allah ii soo duceeya asxaabtii quruxda badan dharka ilmaha mar walba marka xarig saarta adeeg oo ka noqdo dharka oomada ka bixi shaambada ka bixi mar walba muhiim ku yahay biyo cad inoo ka imaado dharka ilmaha midabkooda inoo joogo hadii ay jeceshaan dharka laha ku dhaqin ay kaligood u dhaq dharka inta oo midab kale isku dhaq inta midabka oo aan dhahay cadaankan isku dhaq inta midab kale isku dhaq maasha Allah ku noqonaya ani carfisada shaambada mariska waxa dhan hal mar ku soo dhaqa kala arag xanaanada insha Allah wiilkayga inoo bilaabo rajeynaya insha Allah igu soo duceeya
dharkii labiska ku dhawo soo baxa xanaanada waxaana wax badan iga heysay dharka hoos gashi bisa soo bixi jira hadda garan hadhihin surwaal hadhihin shaar hadhihin wixii dhan oo ii soo baxay maasha Allah tabaaraka raxmaan waa kaas asxaabtii quruxda badan dharkan waxaa kuu fiican inaad iska aruurinin yaa isbuuci hal mar iska dhaq insha Allah taas kuu fiican hadda ilmo yar ay ku joogaan ama 3 bar mar ilmaha saad u yarin xataa waxaa fiican maalin dhaaf inaad u dhaqatid sidoo dharka oo kugu badanin adigana saaid u daal dharka doobato waqti fara badan waa dhaqaysaa daal fara badan waa ka dareemaysaa jabigeena sidaas oo ahaa maalinta arbacada hoogaan jirta maanta waxaan dhahay cirka anoo ii hiidinooya maasha Allah yaa ani qorax mis arkeena dhahay yaa hoogaan saas le ahaa dharka waa soo qalajimaano isla markiina maasha Allah wuu qalalay laakiin qorax wac ma bijirin ba alxamdulillah jikadii ku soo noqday saliid macsaraha dhabku soo siiyaa ku dhahay subag waa ku darsan kartaa laakiin macsaraha soo isticmaalay hilibka waa kaasa waa sisimaya sidoo meel ugu buuran meelna khafiif uga noqonin markaas sintid kadib gacanta jaqjaq ku siinaya sidoo hilibka dabka isla markii kor iyo hoos u shido doona foornada waqti yar ku dhaaf 30 daqiiqo waxa ka soo baxaya wax yar oo daadax kabaabka noocyo far badan loo sameeyaa waa qaabka ugu fudud u sameeysan kartid kabaab ama hilib shiishiidka ilmaha sida u sameeysan kartid asigoo jilicsan oo qaleel ka noqon ilmaha u soo bixi maasha Allah tabaaraka raah ilmahaaga hilib diiday xataa sida u sii ilmaha caatada muhiim u tahay sidan hadaa ugu diyaarisid hilibka waxyaabo miisaanka kordhiyo waaye qaasatan ilmaha xasaasiyada ay qabaan maadaama ay qaadan karin hilibka cad hilibka geelka ama hilibka lo'da insha Allah asigoo shiidan ay qudaar ugu dar sida ugu sameey wax walbaana ku siisan kartaa maasha Allah tabaaraka raxmaan anaga baasta ku soo isticmaalnay foornadiya soo galiyay foornada iyo mashidno foornada si shiidata fiican maadaama howl far badan ahay waa iloobe laakiin markaa galiya dabka u dheereenaya maasha Allah 240 aagay kor iyo hoos u soo shiiday 30 daqiiqo kadib sidoo noqdo insha Allah arki doontaan halkaan waxa ku diyaarinaada cabitaanka wuxuu ka sameeyay cambo iyo caano maasha Allah tabaaraka isku darsatay cambi caano hada isku darsatid yaa maasha Allah tabaaraka raha waliba caanaha wibil kareemka markay siiyihiin kala arag waa laga sheekay karo laakiin caano caadi ah ku soo daray marka soo shiid kadib waa miiranaya maasha Allah tabaaraka raxmaan waa qada dhameystiran ama casho yaa maasha Allah ilmaha waa ugu dhigan kartaa casho ilmaha markaa ugu dhigaysana 5 iyo barki ilaa 1 saac habeenkii ku dhaafin ilmaha hilibada siinaysid ilmaha hilibka xilli dambe la siinayo waxay ka qaadaan dheebshid xumo hada hilib siinaysid insha Allah waqti hore si ama cunno culus hada siinaysid cashada ilmaha xil hore in la siiyaa fiican oo cishaay kadib ayagoo caadi ah koobkooda caana cabaan kadib sariirta ay ku aadaan cabitaan saas qurux badan oo soo baxa ku dhahay kala aragya cambi caanada isku darsatay dhadhankooda waa taqaan lagaaga sheekay karo xogaa yar barfa ku soo daray yaa koobkaas ana isku qabanayo waxaan dhawaa daal naf baa leeyahay yaa maasha Allah tabaaraka raxmaan asxaabtii quruxda badan waa mahadsantihiin mar walba inaan dhaho kama daalaaye muuqaal like far badan ii saara cabitaan marka soo diyaariyo waxa iga dhiman waxa ii dhiman baastadii lagu cunaa hilib fiili foornada igu jira 30 daqiiqo oo foornada hilibka igu jiro cabitaankii diyaarsaday baastadii diyaarsaday kala arag dharkayga hore shaqadii u sii wataa yaa hooyo shaqo waa insha Allah waa mahadsantihiin asxaabtii quruxda badan hooyo hadii la yaama la daalo mala xanuunsado mala mashquulo yaa shaqada ku dhahay dhaxdina ku xirnaata waa hooyooyinka yaa shaqada saaid guri u qabtaan waa hooyooyinka ugu caafimaadka badan mar insha Allah jirkaaga yaa jimicsiga ugu fiican aad sameyn kartid jirkaaga siin kartid waxay tahay hoosh inaad qabsatid maasha Allah tabaaraka raxmaan wax ka asxaabtii quruxda baasadan waxa la rabaa huf saaid inay kaaga bislaanaa la rabaa maadaama bashameel ama aan ku soo karin doono kareem waa arki doontiin kareenkaas in badan anoo karinayo hore u soo galiyay hadda anigoo isticmaalay bisaani la soo wadaagay waxyaabahan ka sameeyana waxyaabo fudud waa asxaabtii quruxda badan marka baasada markay noo soo bislaato kadib waxyaabahan ku dari doono waa arki doontiin maahan oo aan saliid dadku waxa aan kor uga daro halkan waxaa bashameel muxuu ka sameeyay caano saliid iyo 2 qaando oo bur ah intaas miska isqabsadeen 2 koob caana ku daray sis quruxda badan oo igu soo bax maasha Allah tabaaraka raxmaan kor waxa ugu daray wax yar filfil iyo far iyo sool cusbo enough waa kareemkaaga oo baasta sidoo kuugu diyaarsan yahay asigoo diyaarsan uu jira supermarket waa keli kartaa laakiin midka aad diyaarsatid aad dhadhan fiican macaan badan kor waxa ugu dari doona insha Allah jiis baastadii soo qaatay gab ku siiyay kadib waa ku calaanjinaya ama mixada ka dhigaya fargeeta inta fargeetina u qaadataa labadii kalbaasada way ka jajabaysaa kor u qaadaysaa waa gadinaysaa qoyaanka dhan gaarsiinaya
qoyaanka saas ma sii ahaanaya maya isla markii ku dhaw baastadii qoyaanka inta isqabsadaan ee wax kala noqonaysa baastadana ku dhaw kaligeed waa cuni kartaa ilmaha suugada hadii necib yihiin bashameelka sidaan ugu diyaari guriga ku diyaarstaa fiican wax fudud waaye subaga ku darsan kartaa ani saliida ku soo sameeyay yaa 2 qaando bur wax yar oo saliid intaas marka isqabsadaan labada koob caano u geysana qalaajiskana kama deynaysid kareem marka ku noqdo jiis hadii ay haysato waa ku darsanaysaa hadaa jiis haysana waa iska dhaaf kartaa ani wax yar jiis ay waa ku soo darsaday asxaabteyda quruxda badan baastada kal ilaabtaas ku soo baxday lagama sheekay karo yaa qofkii cuno le ka sheekay kara ku afaarahan ma soo cuntay hadaad cunin videogan xili dambe khamiis oo ni soo gaaraya maalinta jimcaha ilmaha qadada loo soo tuuro groupka la talin hooyaha noola soo dhiga sawirada ilmaha sida ugu heleen gabdho fara badan abaayina waxaa jiro groupka la soo dhigo ilmaha loo sameeyo marka dhaho maasha Allah tabaarak isla markii sameeyaan groupka soo dhigaan waa mahadsantihiin hilibka ka saakor iyo hoos marka u shido 30 daqiiqo kadib sidaas ku soo baxay maasha Allah tabaarakana hilibku waxa la rabaa inuu qoyan yahay qaleel uu ka noqonin haduu qaleel oo ka noqdo dhadhankiisa waa lumaya maasha Allah tabaaraka rahmaan soo noogu soo baxay kabaab fudud oo si fudud ku sameeysan kartid oo waqti fara badan kaaga baahneen waaye foorno leemiya ina ku sameeyo maya waxa ku sameeysan kartaa digsiga aniga ku sameeynaayna waa niila soo wadaagaya asxaabtii quruxda badan tiimka oolin foornada insha Allah laakiin foornada ku taalo waaba fududahay maasha Allah tabaarak kor iyo hoos le u shidanaysa shaqadaada hoolaada kala iska sii qabane 30 daqiiqo dib sidaas ku soo baxay hilib mujaa sidaas qoyaan u leeyahay sidan inuu qaleel ka noqonaa rabaa dhadhanka sidoo kaaga lumina mar hadoo qaleel noqdo hilibkana ma yeelanayo qudaartaane waa soo shiidaya basashii ya barbaroonigi yaanyadii kal ilaabay noqdeena ku dhahay qalaadada ku soo waa soo shiiday waa suuq diyaarsan ama maraq yar suugo yar oo kala arag waaye baastada qofkii rabo kor ugu darsanaya qofka ramsidiisa baastada lagu cuni karaa kareem ay leedahay maasha Allah tabaaraka rahmaan waa kaasa saxankaas qurux baan soo diyaariyay cuno isku dheelitira marka lagu dhahayno waxa la rabaa saxanka inuu borotiinka iyo fitamiiniska labadaba saxanka laga heli karo carbohydrate ama cuntada caadiga ah ee saxanka inta ugu yar ee tahay maasha Allah tabaaraka rahmaan waa kaas asxaabtii quruxda baasas qurux baa noogu soo baxday barbarooniga basasha yaanyada afaari soo gaduuta foornada aag soo bixin inta soo shiiday suugadaas kal iyo laabtay ku soo baxday yaa hooyo marka ta oo shaqo ay siito waxyaabaha ku fududeena waa inaa sameysaa dharkaygana waa dhaqan weeyaa maasha Allah cuno qurux badan oo kala arag ilmaha si qurux badan ay uga heleen waa ka soo tuuray Allahumma baarik waa maasantiin asxaabtii quruxda badan mar walba inaan mahad celi kama daalo baastadan hal soo dhadhamiyo hadii hore u dhadhamisay waa taqaana laakiin kabaabkan insha Allah ilmaha loo sameeyo qaasatan ilmaha hilibka diido ilmaha caatada ilmaha xasaasiyada qabo ilmaha gaasatay qabaan sidaan ku sameysan kartaa baastada adoo suugo ugu darin hilibkeeda bardhadeeda oo foornada ku soo sameysa ku siinaysa maasha Allah tabaaraka rahmaan lagama sheekeyn karo ya maasha Allah tabaaraka rahmaan asxaabtii quruxda badan waa kaas yaasas qurux badan saxanka noogu soo baxay saxanka qofkaas isku qabto yaa wax u dhiman malahan ku dhan magaalkiisa soo galaya ilaaha noo barakeeyo inta haysan Allah sii inta haysan Allah u barakeeyo Allahumma aamiin asxaabtii quruxda baa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh